السلام عليكم صاحبيال dhammaantiin baan salaamayaa maalmahan waan kala mashquulnay oo bilahan waxba soo maangelin laakiin hadda waxaan isku dayaa inaan active ahaado maanta waxaan ka hadli doonaa Next.js waxaan ka bilaabi doonaa React then Next.js projectigan wuxuu noqon doonaa kaliya kuma cover garayn doonaa Next.js waxaan cover garayn doonaa guideline of web development from start to finish waxyaalaha u baahan tahay inaad taqaano oo markaasi anoo dhinacyada badan ka fiirnayna istaaga ugu wanaagsan ee web development-ga marka haddii aad garanayso HTML iyo CSS JavaScript-na wax aad ka garanayso projectigan waa projectigaagii complete with me waxaan halkan ku diyaariyay chapterska projectigan oo ku koobnaa doono basic requirements-ka u baahan tahay sida ku sheeg waxaa kamid ah HTML iyo CSS sidoo kale waxaa u baahan tahay JavaScript inaad wax ka garanayso sida variableska arrayska functionska higher order methodska sida map filter and so on assign and await oo sida datadii looga soo fetch gareynayo haddii waxyaalahaas aad garanayso waa kugu filan tahay React basicsna u baahan tahay inaad taqaano dabcan waa iska optional sababta optional ku leeyahay waxay tahay projectigan gudihiisa baan ku cover gareyn doonaa summary ku saabsan React then waxaan ka hadli doonaa introduction ku saabsan React.js sida maxaa uga baahan tahay React.js maxay tahay sababta loo sameeyay React iyo waxyaalahaas kadibna waxaan setup gareysan doonaa environment setup anagoo Node.js iyo waxyaalahaas setup gareysan doonaa kadibna waxaan u guda geli doonaa Next.js why you need Next.js su-aashaas baan ka jawaabi doonaa ugu horeyn kadibna waan soo install gareysan doonaa folder structure-ka iyo waxyaalahaas ma ku sharxi doonaa kadibna waxaan ku xijin doonaa routing-kii sida app router oo Next.13 ay wadato haddii waxyaalahaas ay kugu yar cusub yihiin ha degdegin waan ku sharxi doonaa layout-kii loading-kii error file API routers dynamic routing and more waxaas oo dhan waan cover gareyn doonaa projectigan sidoo kale waxaan cover gareyn doonaa data fetching server component ultimately projectigan waxaan ku setup gareyn doonaa authentication anagoo adeegsanayna Firebase authentication ugu dambeynna waxaan ku deploy gareyn doonaa Vercel dhammaadkana projectiga wuxuu u ekaanayaa sidaan waa iska project basic waxaa ugu talagalay inaan kugu tuso Next.js featureskeeda oo conceptigeeda guud aan projectigan kusoo koobay layoutka wuxuu ekaanayaa headerka sidaan halkan waxaan ku haysanaa button ay ku qoran tahay login halkaana waxaan ku haysanaa home page-keeni showcase-ka haddii aan buttonkan login-kan ku dhufano wuxuu inoo redirect gareynayaa Firebase authentication si noola authenticate gareeyo dabcan waxaa adeegsan doonaa Google authentication provider wait a second okay sida ujeedaanba wuxuu soo akhristay Google account-kayga this is the basic how you can set up Firebase authentication halkan haddii aan ku dhufano wuxuu ina geyn doonaa products page dabcan datadan ma aha data dami ah waa data aan soo fetch gareysan doono laakiin haddii aan refresh dhahno waxaad arkaysaan in datadan aan markale la doonayn loading iyo waxyaalahaas aan arkayn sababtoo waa la cage gareeyay waxaan ku sii doonaa dhammaan waxyaalahaas okay waxaan haysanaa datadan oo aan soo fetch gareysanay anagoo adeegsan doonaa DOM APIs haddii aan product aan ku dhufano wuxuu ina geey doonaa productigaas description-kiisa waxaan arkaynaa title-kiisi description-kiisi price-kiisi iyo categories-kiisa halkan button-kan dabcan ma shaqeyn doono projectiga waa guud ahaan waa intaan laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan kusoo koobo aan u badiyo anigoo sharaxayo conceptiska okay maxaa sugaysaa coffee-gaaga diyaarso let's get started okay maxay React xalinaysaa in traditional web development and haddii aad adeegsanayso HTML CSS iyo JavaScript HTML for structure CSS for styling JavaScript-dana markaasi DOM manipulation-ka adigoo events-ka iyo waxyaalahaas handle gareynaya requests waa ka dirsan kartaa dabcan laakiin markii aad sidaas isticmaalayso waxaa loo yaqaanaa vanilla JavaScript macnaheedu waxay tahay plain JavaScript laakiin markii application-kaada uu weynaado waxaa u baahanaysaa in components-ka aad manage gareyso
waa halka markaasi React ay soo introduce garaynayso concept loo yaqaano virtual DOM. adigoo isticmaalaya virtual DOM amaba DOM oo lagu soo gaabiyay document object model, React waxay si fudud u update garaynaysaa user interface-ka iyadoo yareynaysa re-rendering-ka aan loo baahnayn, improve garaynaysa dabcan performance-ga application-kaada. React waxay soo saartay component based architecture kaasoo reusable ah. React.js waxaa develop gareeyay maintain gareeyay shirkadda Facebook ama Meta. Sababta ugu weyn ay markaasi u sameeyeen waxay tahay in user interface-ka si fudud loo bedeli karo. sababta markii aad isticmaalayso HTML, CSS iyo JavaScript, mar walba application-kaada weynaado waxaa adkaanaysa user interface-ka inaad wax ka bedesho. haddii aad u baahato inaad wax ka bedesho for future, waxay noqonaysaa in application-ka la reload gareeyo taasoo performance-ga caqabad ku ah. React.js halkaas ay imaanaysaa. React.js waa component based architecture. tusaale ahaan haddii aan kasoo qabano Instagram oo kale, Instagram sidebar-kan waa component gooniya, ma reflect garaynayo header-kan meeshaan aan idhaahdo histories-kan ayagana waa component gooniya. qaybtan right bar-kan waa component gooniya. Content-iskan halkan soo galayna waa component gooniya. taas macnaheedu waxay tahay meeshaan waxa ka shaqeynayo team gooniya, meeshaan team gooniya, halkan team gooniya, halkan team gooniya, isma reflect garaynayaan. haddii loo baahdo in textigan serjidan la bedelo kale, simply user interface-ka inta laga soo bedelaya. haddii balin JavaScript oo aan lahaa oo kale, waxay noqon lahayd in project-gii dib loo wada reload gareeyo, performance issue noqonaysa. waxaan rajeynayaa concept-ga guud ee React.js in isla fahnay. runtii waana library-ga ugu caansan ee dunida hadda la isticmaalo. waxaa isticmaala shirkado waaweyn ay ka mid tahay shirkadda Facebook oo productskeeda ama Meta aan idhaahday oo productskeeda ay isticmaalaan sida Instagram, Facebook laftirkiisa, Twitter, TikTok and all that, Netflix, waxyaalahaas oo dhan waxay isticmaalaan React iyo huge companies. marka barashada aad baranayso React way ku anfici doontaa, waa skill essential future fiican leh. intaas aan u gudbo React.js. hadda waxaan u guda galayaa inaan setup gareeyo project-kayga. ugu horeyn si Next.js project aan setup gareeyo, dabcan React Plain ma isticmaalayno, waxaan isticmaali doonaa Next.js. si aad project Next.js u setup gareyso, waxaad tagi kartaa official documentation-iska Next.js. halkan waxaa arkaysaa command-gan aad soo koobiyeysanoo. intaas kadib aan furo terminal-kayga, waxaan tegayaa documents, halkan aan kasii tago demos, halkaana markaasi aan ku generate gareysanaya React application-kayga. aan zoom kusoo indhaahdaba si aad ila aragto centerka ku geeyo. okay, haddii aan command-gii aan soo koobiyeysta aan halkan paste oo ku dhaw arkaysaan npx create next app at latest. haddii aan intaan aan rangareyno wuxuu ina weydiinayaa Tailwind CSS inaan u baahana iyo waxyaalahaas. dabcan project-gan waxaa la isticmaalinaa Tailwind CSS. waxba yaan magac ugu darin intaan iraahdo. waxaa la leeyahay to proceed, yes aan leeyahay. waxaa la weydiinayaa project-gan maxaa ugu magac dareysaa. aan ugu magac daro YouTube maybe Next.js enter. waxaa la weydiinayaa ma jeclaan lahayd in project-gan TypeScript aan la isticmaasho. dabcan ma isticmaalayo, nowda aan ku daayo. waxaa la leeyahay ma isticmaal lahayd ESLint inaad isticmaasho. ESLint basically waa errorska iyo issueska in lagu highlight gareeyo. dabcan yes aan iraahdo. ma isticmaali lahaysaa Tailwind CSS, yes aan iraahdo. waxaa la weydiinayaa project-gaada ma uga baahan tahay SRC directory. this optional. sababtoo aan u isticmaalayo waxay tahay hadda si folder structure-ka u qurux badnaado. yes aan dhaho waa u baahan in isticmaalo. waxaa la weydiinayaa ma u baahan tahay inaad isticmaasho app router oo weliba recommended ah. app router waan cover garay doonaa, don't be confused. okay, yes aan iraahdo. waxaa la weydiinayaa ma u baahan tahay inaad isticmaasho import alias. import alias basically waxa weeye marka hadda wax soo import gareynayso, instead of sana dhihin wuxuu ku siinayaa inaad sana tiraahdo components like that. yes aan iraahdo waan u baahanahay inaan isticmaalo.
what import alias would you like to configure aan enter iska iraahdo. Okay, hadda wuu noo generate gareynayaa next applicationkeena. Okay, for now sida arkaysaan wuxuu inoo soo install gareeyay Next.js. waxaa laga yaabaa inay xoogaa minute ah kugu qaadato, waxay ku xiran tahay performance-ga amaba network-gaaga. intaas kadib aan furno projectiga hadda aan sameyno. waxaan u magac darnay I think YouTube Next. projectigaas markaan furno kadib command k iska xiro code dot, macnaheedu waxay tahay code dot waxaa inoogu furayaa Visual Studio Code. hadda enter dhahno kan waa iska xiri karnaa, aan expand gareysana kan halkan inaga xir, welcome tan inaga xir. Okay, ugu horeyn waxaan sharxi doonaa folder structure-kan. ha ku yara confuse gareewin, simple anaga u sharxi doona. halkan waxaan ku haysanaa node modules. halkan waxaa soo gelaya every library aynu soo install gareysano. tusaalahaan haddii aad soo install gareyso library aan iraahdo React router, halkan uu soo gelaya any library. waxay ujeedaan ESLint, Babel, all the stuff halkan ay soo gelayaan. that means folderkan maba u baahnidba inaad furfurto oo waxba ha furfurin. by default markii aan ragareyso npm install asiga iska soo degaya wata. halkan waxaan ku haysanaa public directory. aan zoom ku soo dhawo. public directory-gan waxaa inoogu jiro, waxaa soo gelaya wax walba oo publicly accessible ah. that means wixii halkan ku jiro URL ahaan waa loo access gareyn karaa, waa public. hadda waxaa inoogu jiro Next.js SVG iconkeeda iyo Vercel SVG iconkeeda. Vercel dabcan diiwaanka sheegi doonaa, laakiin waa teamka sameeyey Next.js. waxay provide garayaan hosting and all that stuff, and it is actually waa si fudud u isticmaali kartaa. Okay, halkan waxaan ku haysanaa src directory. src directory-gan waa halka wax walbo aynu koodkeena ku qori doono. inta badan waa meesha aan transactionka ama waxyaalaha ugu badan ka qaban doono. hadda waxaan ku haysanaa app directory. app directory-gan waa feature hadda Next.js ay provide gareyso. waxaan usoo noqon doonaa later, aan kasii soconaa hadda markii aan routing iyo waxyaalahaas ka hadlayno. waxaan halka ku haysanaa Favicon. hadda waxaan ku haysanaa Vercel Favicon. halkana waxaan ku haysanaa global CSS. waxaa inoogu jiro Tailwind CSS componentskeeda iyo waxyaalahaas. Okay, layout-kan waa file convention ah ee Next.js sameysay. that means wax walba layout-kan ma u baahnin. instead tusaale ahaan haddii halkan aad rabto header oo kale oo componentska shared u ah, headerka every page markii la tago waxaa la rabaa headerka in la arko iyo footerka iyo waxyaalahaas. dabcan halkan unbaa gelinaysaa headerka, footerkana halkaan gelinaysaa. wuxuu kaloo soo ritaan gareynayaa dhammaan bodyga. ma u baahnid any other configuration. you see siday u fududahay layoutka iyo waxyaalahaas Next.js failasha sameysay iyo waxyaalahaas ayagaa sameeya. halkan waa titleka kor ka soo muuqanaya. aan ku bedelno maybe e-commerce UI aan ka dhigno, generated kan aan ku bedelno this is for learning Next.js. okay, waxaan soo ritaan gareynaynaa wax allaala wixii bodyga la soo gelsho. filekan basically waa intaas. later on waan sharixi doonaa oo wax baan ka qaban doonaa. aan iska xirno CSS-kan. page-kan waa maxay? page-kan waa sidoo kale file Next.js ay provide gareysay. waa page by default. I will tell you later siday ku tahay. laakiin home page-kan waxaan soo ritaan gareynaynaa Next.js contentskeeda, dhammaan waxyaalahan aan hawada ku cuno. let us remove kaliya aan soo ritaan gareyno h1 tan aan soo ritaan gareyno aan dhahno hello Next.js save. src-dan halkaas aan isaga xirno. halkan waxaan ku haysanaa ESLint JSON-t iyo Glignor JSON config. Next.js config-gan waa waxyaalaha aad rabto, tusaale ahaan image URL-ska, domain-ska iyo configuration-ka aan Next.js ku sameynaysaba file-kan aad ku sameyn doontaa. dabcan waa sameyn doonaa. halkan waa package log JSON-teena, waa imports package-kii oo copy-kan ah. halkan waxaan ku arkaynaa namekii projectigeena version 1 privatekiisa true,
scriptska aan haysano waxaa kamid ah si aan local server aan ugu rangareyno inaan rangareyn doono npm run dev haddii aan deploy gareynayno amaba aan production ka dhigayno inaan rangareyn doono npm next build aan dhahnay haddii aan buildigii aan start gareynayno aan dhahayno npx next build next start ESLint-dan hadday aan gareynayno aan dhahayno next lint dependenska hadda uu wato projectgan waxaa kamid ah autoprefixer iyo ESLint iyo waxyaalahaas iyo tailwind css dabcan react sida ujeedaba waa essential iyo react router dom iska xirno waxyaalahaas oo dhan ugu dambeynna hadda ku furno projectgeena local server waxaan leenahay npm run dev saa ujeedaanba wuxuu inoogu furo url-kan aan url-kan ku dhufano access gareyno sida ujeedaanba halkan waxaan ka arkaynaa hello next.js waana wixii aan ku qornay pagekan okay intaas kadib aan isla fiirino sababta ay tahay inaan u isticmaasho next.js dabcan next.js waa framework reactina waa library framework iyo libraryna farqi u dhexeeyo waxaan ka sameeyay video hore waa soo daawan kartaa react waxaa jira limitations laakiin next.js waa comprehensive wax walba way fududeysay talahaan errorska sida usoo display gareey doonto layoutska loadingkii routingkii data fetchingkii iyo waxyaalahaas oo dhan way customize gareysay oo way fududeysay si u fudud ku baraysaa next.js waxaa sameeyay team la yiraahdo Vercel oo hosting providers ah hosting kaliya ma provide gareeyaan waxyaalo kalena waa ay provide gareeyaan oo terminalis iyo xitaa waa ay sameeyeen waxaa ku deploy gareyn doontaa si fudud baa ugu deploy gareyn kartaan Vercel waana markaasi next big thing oo react.js bedeli doona react.js haddii aad experience hore u leedahay basicgeeda aad taqaano next.js waa ku fududahay inkastoo some differences ay kala duwan yihiin laakiin hookskii probeski waxyaalahaas oo dhan isla sidii baa loo isticmaalayaa okay intaas kadib aan u guda galno dhisida projectigan markaan dhisayna baa waxyaalo badan fahmi doontaan ugu horeyn haddii aan folder kale aan sameysanaba oo aan u baxsano components folderkan waxaan dhex gelin doonaa any component aan sameyn doono sida headerka iyo waxyaalahaas laakiin app directorygan waa maxay app routerkan by defaultly waa server component okay server component waa maxay next.js waxay u kala baxsan tahay client component iyo server component by defaultly app directorygan wax walba la xaglisho waa server component oo server side rendering ah wax client side ah ma jiraan aan ku tuso for example haddii pagekan aan tagno halkan aan iska xirno hoosna aan inaga yareeyo command j oo aan isku dayno inaan console log aan ka soo saarno hello next.js si wadaan dhahno oo halkan aan furno console-keena waxaa arkaysaa inaan waxba soo bixinin waxba soo bixi maayaan sababta maxay tahay waxba browserka lagama soo akhrinayo oo client side kuma ran gareysna filekaas laakiin haddii aan terminalkeena aan furno waxaa arkaysaan hello next.js in halkan kasoo bixayso waa server side that means haddii aad next.js isticmaalayso uma baahnid express.js ama any other back end uma baahnid next.js waa full stack react framework haddii aan isku dayno inaan status aan isticmaalo hoos aan iska xirno aan isku dayba inaan dhahno waxaan isticmaalayaa use state aan dhahno name set name aan dhahno use state initially aan dhahno abdi okay haddii aan halkaas save aan dhaho on browserka aan furo waxaa arkaysaa in issue oo inoo soo baxay waxaa leeyahay you are importing a component that needs use state it only works client side component but none of its parents are marked with use client so they are client side component by default they are server component by default taas macnaheedu waxay tahay use state kuma isticmaali karo componentigan
sababta componentigan waa server component, waa isla sida anoo isticmaalayo kale express.js iyo waxyaalahaas, waa server side la render laga yani soo akrinaya. marka si aan u isticmaalo client side waxaan u baahanahay inaan topkan, dabcan imagekan waa iska delete gareyn karnaa, topkan aan dhaho use client componentigan waa client component. okay, haddii aan save dhaho hadda errorkii uu baxaya, it works. hadda console log waan isticmaali karnaa, marka nameki haddaan console log kasoo saarno aan furo, you can see abdi hadda way noo soo baxaysaa. that is client server component. si client side u isticmaasho component u bedesho, you see how easy it is. kaliya waxaa ka hormaraysaa use client oo macnaheedu tahay waa client componentgan. okay, aan iska tirtirno waxyaalahaas, just waxaan rabay inaan idintuso. new state-na dabcan waxaan rajeynaya inaad garanayso, waa react hooks bay kamid tahay. react hooks, probes iyo waxyaalahaas haddii aan si fudud ku yara tuso. use state waxaa loogu talagalay statekaga markii aad bedeleyso. tusaalahaan haddii aan rabno inaan dhahno const number set number aan dhahno, wuxuu qaadanayaa laba parameters. kan koowaad waa initial statekii, kan labaadna waa statekii loo bedelaya. initial stateka aan ka dhigno use state aan isticmaalo, initial stateka aan dhahno 70. okay, si markaan dhahno hadda initially haddii aan numberkan console logga aan kasoo saarno oo aan browserka aan ku eegno, wuxuu okay we can't use it, waa client component, use client aan dhahno. okay, aan ku furnaba, then if we check, dabcan sidebarka aan ku furo, no aan ku furo okay, dabcan waxaa inoo soo baxay hadda 70 waa initial statekii. statekan aan bedelna aan dhahno, halkan aan keensano buttonkaas aan dhahnaba change number. okay, change number markaan dhahno, buttonkan markii lagu dhufto waxaan rabnaa inuu stateki isbedelo. on click waxaanu leenahay set number, waxaa ka dhigtaa number +1 maybe. save haddaan dhahno, hadda waxaan halkan ku haysanaa change number. okay, see how what the magic happens. hadda 70 haysanaa soo ma, haddii aan ku dhufano, you see 71 stateka isbedelaya. that's basically use state. hopefully inaan use state as la fahnay. waxaa kaloo rabaa inaa idintuso probes. waa maxay probes? in react probes waxaa loo adeegsadaa in componentska ay xog isugu gudbiyaan. tusaale ahaan waxaan haystaa pagekan, waxaan rabaa component kale inaan wax u gudbiyo. aan componentskan tago, waa iska symbol, waan delete doonaa. componentskan aan tago, aan dhahno sub component.js ama .jsx. farqa u dhexeeya waxay tahay x haddii aad raaciso wuxuu aqoonsanayaa editorkaada inaad isticmaalayso. react.js wuxuu raacinayaa aan dhahe wuxuu ku raacinayaa image abbreviations. okay, for image abbreviations. okay, aan dhahnaba rfce si aan u generate gareyno react functional component. dabcan waxaa isticmaalayaa extension loo yaqaano, yes, waxaa isticmaali kartaa extensionkan, then wuxuu ku siinayaa a lot of shortcuts iyo waxyaalahaas. aan kaliya soo ritaan gareyno h1 ay ku qoran tahay probes data. see, okay, hadda haddii aan pagekeeni aan ku noqono, componentskaas aan wacnaba sub component aan dhahno sub component, yes, hadda tay import aliaskii oo sidaan oo kale, you see, aan self closing tag ka dhigno. if we save, okay, probes datadan waxay ka imaanaysaa componentgan. probes datadan componentgan si markaasi xog aan ugu gudbino waa inaan datada as a probes aan ugu baas gareynaa. for example, waxaan rabaa in h1tan waxa ka soo baxaya ay aan iska xirigan ay ahaadaan dynamic oo laga soo akhristo componentgan. simply halkaan aan tagayaa, waxaan dhahayaa title maybe aan la mid dhigno abdi. okay, ama aan dhahno probes data.
okay hadda waa u baas gariyay si markaasi aan u aqbalo probiskaas halkaan koraan tagayaa waxaan samaysan karaa inaan dhaho probis then aan dhaho halkaan aan dhaho probis dot title. You see probis dtd waa lasoo akhrisanayaa at the same time waan distract garaysan karaa halkaan title haddaan dhaho si aan koodkayga aan fududeysto titlekii halkaan waan kasoo akhrisan karaa si haddaan dhaho dtd wayna soo baxaysaa. That is basically probis. waa markii component child ah ama aan dhahay component parent ah uu xog u baas gareynayo component child ah. waxaan rajeynayaa hooks UC state iyo probis ina isla fahnay. That's basically concepts you need. ma adka haddii aan iska dalayno componentskaas waa idinku tusaya kaliya. okay aan iska bixino waxyaalahan oo dhan. intaas kadib waxaan rabaa inaan u guda galo saaxiibayaal projectiga dhismihiisa. ugu horeyn aan isla fiirino projectigana dhammayska tirin sida uu ekaanayo. sida ujeedaanba waa header iyo showcase waa iska simple. dabcan projectigan focuska ma ka saari doono user interface waxaan saari doonaa concepts. aan ka bilaabno hadda headerkan then aan ku xijino showcasekan. okay haddii aan sameeyo aan tago pagekan oo mainka ahaa instead aan soo return gareynayna hello next.js waxaan rabaa marka in layoutkan aan idin introduce gareeyo. hadda tusaale ahaan waxaan rabnaa header componentigan. headerkan waxaa lagu isticmaalayaa any other page. tusaale ahaan products markii la tago headerkan waxaan rabnaa in la arko. okay aan divkan body aan u bedelno haddii kale wuxuu ina soo saarayaa hydration error. hajiban aan dhahno header aan ku dhex qorno maybe save haddii aan dhahno halkan kore aan tegaynaa aan wacno componentigii hadda aynu soo sameynayo headerka ahaa. okay then self closing tag forno haddaan save aan dhahno refresh dhahno waxaa halkan ku haysanaa headerkan any page aan booqdo wuu muuqanayaa. that's layout. muu baahnid any other configuration yani muu baahnid configuration kale inaad sameyso. layoutkan waa file gaara ay sameysay next.js. filekaas layout markaa u bixiso by defaultly waaba markii aan next create app aad dhahdo lasoo degaa wuxuu soo return gareynayaa bodygii kale halkan headerkii iyo layoutkiina koraa ka mari kartaa. that is easy to use. okay headerkan dhisitaankiisa aan guda galno. ugu horeyn headerka waxaan u qaybinaynaa laba qaybood. waa keena dhammaystiran fiirno aan iraahdo saddex qaybood qayb left ah center ah iyo qayb right ah. okay ugu horeyn aan dhahno qaybta leftiga ah kadibna aan ku xijino qaybta centerka ah ugu dambeynna community aan u sameyno qaybta right-ka ah. okay qaybta leftiga waxaa inoo dhex degaysaa div aan dhahno ee ku dhex jirto svg iconkan. save haddaan dhahno oo halkaan aan ka egno you can see waxaa arkaysaan svg iconka inay halkaas inoo soo degtay. then centerka aan tagno oo aan dhahno div kale halkaan hanoo soo return gareeyo link. what does this link mean? next.js waxay leedahay aan idhaahday link component iyada u gaara oo dabcan ka faastisan kana sii wanaagsan kan react router dom. markaa react belina isticmaalayso waxaa u baahan tahay inaad isticmaasho react router dom kusoo raabgarayso applicationkaada routerkii aad isticmaasho oo limitations badan. laakiin next.js routerkiisa wuxuu leeyahay options fara badan waana simple to use. haddii aan dhahno hajrafka geynayo aan dhahno ama meesha inuu geynayo slash una meelna ina geyn then aynu ku dhex qorno home. save haddaan dhahno waxaa halkaa ka arkaysaan home. alright aan kalna duplicate dhahno then right-kana aan dhigno markaasi div kale oo aan dhex dhigno buttonkaas waxaa dhex degayaa haddii aa fiirsaan iconka google then text ay ku qoran tahay login. okay ugu horeyn waxaan u baahanaa svg iconkaas waa soo qaadanayaa halkan aan dhigto save haddaan dhaho iconkana markaasi wacanayaa waxaan leeyahay google iconkaas iwac then let me close aan kusii xijiyo h1 ay ku qoran tahay login. save haddaan dhaho
aan checkid waxaa arkaysaa buttonka inoo soo baxay. Then aan guda galno inaan style garaysno. Styleka ugu horeeya aan siinayno waxay tahay halkan waa leftigii, kan waa centerkii, kanna waa rightkii oo buttonka ah. Ugu horeyn after this body aynu ku soo raab garayno dhammaanba nav tag halkan soo dhex gelino. Then naftan aanu siino class name. Classkaas waxaanu leenahay relative. haddii aad isweydiinayso halka aan ka helayo autocomplete-kaas, Tailwind CSS waxay leedahay blocking loo yaqaano I think Tailwind hadda halkan ku qorno yes extensionkan Tailwind CSS IntelliSense wuxuu ka caawinayaa markaasi in yani aad hesho autocomplete-kan haddaad hovergarayso waxay la macno tahay position relative. haddii aad leedahay CSS balina isticmaal ha noqonin kaliya ku isticgarayn CSS. Tailwind CSS waa great option of CSS. ma u baahnid faylal badan, kaliya waxaa ku dul qaranaysaa inside gudaha marka componentigaada. markii aan raacino relative waxaanu leenahay padding x baynu siinaynaa aynu dhahayno 4 container baynu ka dhigaynaa si uu centerka uu dego. waxaynu u yeelaynaa markaasi shadow oo halkan waxaa ujeedaa inuu leeyahay shadow. Then waxaan kaloo leenahay markii containerka aynu raacino mx waxaynu leenahay auto save haddaan dhahno waxaa arkaysaan hadda inuu sidaa noqday. waxaan rabnaa inuu isgarab dego sababtoo waxaa arkaysaa hadda in uu yeesho borderkii laakiin uu isku dul yaacay. waxaynu leenahay flex ugu horeyna isgarab dego. itemskana waxaynu dhigaynaa center. You see justifyna waxaynu leenahay space between ha noqdo. backgroundkiisana waxaan ka dhigaynaa white. Save you go. intaas haddii aan ugu soo gudubno layoutka. Okay, then waxaa u soo gudagelaynaa linkskan haddii aan ka dhignaba unordered list oo aan dhahno ul, then aynu sii raacino listigan aan soo weyniyo listigan aan sii dhexgeliyo linkigan. then kan duplicate aan dhaho, kana iska cuno, then aan dhahno products maybe save haddaan dhaho. You see waa the same. ul kanaan marka waxaa leeyahay class name ku darayaa. ugu horeyn waxaan leenahay flex ha isgarab degaan ayagana. waxaa ujeedaa inay isgarab degeen. itemskana waxaynu dhigaynaa center. waxaan rabnaa inaa space u dhexaysiino. si aan u dhexaysiino waxaanu leenahay space x of 5 maybe. You see haddii aad fahmaynin stylinka iyo waxyaalahaas waa easy. waxaa aadi kartaa Tailwind CSS official website-keeda. dabcan waxay ku siinayaan complete guideline. waxaa arkaysaa haddii aan fiirino get started aynu niraahno. Okay, waxaa halkaa arkaysaa waxaa ka akhri kartaa documentationska halkan positionska kale absolute relative-ka haddii isticmaalaynay flexi grid justify content waa sida hadda isticmaalayn justify between alignmentkii align item center oo la macnaha align item center waa just simple CSS kii oo la soo gaabiyo la fududeeyo weeyaan. Okay, intaas markii aan kasoo gudubno textigan aanu bedelno waxaan raacinaynaa class namekaas aynu dhahno text ama font size ka ha noqdo text ha noqdo sm. Okay, sm waxaan arkaysaa inuu yaraaday. text colorkeedana waynu bedelaynaa. waxaynu leenahay gray oo 400 ha noqdo. markii la hover gareeyo colorkiisa ha noqdo aynu leenahay text gray of 500 maybe. Save haddii aan hover gareyno waxaa arkaysaa inuu isbedelayo. let me zoom you. good. Okay, kaliya kalena duplicate aan soo dhaho. okay, aan iska saaro kan iska yareeyo. then qaybta linkiga meesha homeka aan ka dhigo products. Save you go. waxaa kaliya hadda ii dhiman waa bottomkan right ka degan. bottomkan waxaan ku darayaa asigana class name.
oo aan leeyahay flexi si arkaysaa huu qarsamay. aan dhahaa items center hadegaan spacena waxaan ka siinayaa qeybta x-ka ah oo 2 ah. sababta u qarsamayna waxay tahay iconkan aan raaciyo aan u yeelo width iyo height. ugu horeyn widthgiisa waxaan ka dhigayaa 5, heightkiisana waxaan ka dhigayaa 5. what's wrong? ma xirin taagan safe. okay, waxaa arkaysaa inuu hadda soo baxay. space x-ka 2 markii aynu ka dhignaa waxaynu ku dareynaa oo kale padding qeybta x-ka inaynu 6 ka dhigno. waxaa arkaysaa inuu x-kan kasoo yaro durgay. intaas kadib backgroundkiisa aynu bedelaynaa, waxaynu ka dhigaynaa blue of 500. you see, waxaan kaloo kusii dareynaa markii la hovergareeyo in backgroundkiisa blue of 600 uu ka yara muuqaal duwanaado sida aad arkaysaan like that. waxaan kaloo kusii dareynaa text ama font size-ka ha noqdo sm. dabcan haddii aad hovergareyso xitaa waa arkaysaa font size-ka inuu la mid yahay iyo width-ga aan dhahay pixelska uu siinayo. si una line-ka inoogu dheeraan aan soo jarno textina waxaynu ka dhigaynaa ama colorkeeda white. fonti waxaynu ka dhigaynaa bold. rounded baynu u yeelaynaa si geesaha uu uga soo durgo. as you can see inuu geesaha kasoo durkay. waxaan kaloo kusii daraynaa transition, maybe transition. durationkiisana waxaynu ka dhigaynaa 200. waxaan u baahannahay oo kale qeybtan y-ga inuu padding ka yeesho. waxaan ku darayaa padding y oo naqanaya isagana 2 maybe. here we go. okay, laakiin waxaan arkaysaa headerkan inuu balaciisa yaryahay. si aan u weyneeyo naafkanaan tegayaa, waxaan ku darayaa padding y of 4 maybe. save haddaan dhahno, here we go. waxaan u malaynayaa inay same iska daba dhow yihiin. weliba kana ila yara qurux badanba. okay, sidiisa aan ku dayno. okay, that is it. intaas kadib waxaan u guda galaynaa sectionkan kale. sida ujeedaan sectionkan waxaan u qaybinaynaa qeyb left ah iyo qeyb right ah. qeybtana textidan ay degayso iyo buttonkan, qeybtan right-kana uu degayo imagekan. haddii aan sida aan sameyno hadda, okay, si aan u sameyno headerkan waa iska xiri karnaa, layoutkan waa iska xiri karnaa. waxaan soo furaynaa appka haddii aan tagno pagekeeni layoutka ah oo markaasi aan dhahay home pagekeeni. halka waxaa inoogu qoran hello next.js. divkaas kadib waxaan kusoo raab gareynayaa div kale oo aan kusii raab gareynayo div kale oo aan kusii raab gareynayo div kale oo qeybta leftiga ah. kadib aynu sii dhexgelino markaasi h1 aynu ku qorno hello pie or sell something maybe like that. save haddaan dhahno waxaa arkaynaa textigaas. h1ka aan dhahadno aan sii raaciyo paragraphkaas maybe kan aan kasoo qaato halkan paste aan ku dhaho. okay, like that aan dhaho format document. that's great. haddii aan halkaas uga soo baxno paragraphkaas, waxaan sii raacinayaa oo kale div oo qeybtan aan dhahno aan ka dhigo oo qeybtan waa buttonkii. waxaan sii raacinayaa div kale oo aan sii raacin doono markaasi link. maybe tag aan furo linki link from next.js ah. hajrafkiisana waxaan leenahay ha noqdo products. waxaan ku dhex qoraynaa products. save haddaan dhahno waxaan arkaynaa linkigan inuu noo soo baxay, laakiin products page ma jira baada. haddii aan halkaas aan uga soo baxno qeybta leftiga ah aynu u guda galno qeybta imageka ah. okay, imageka halkan baynu dhigaynaa aynu isagana div kusoo raabgareynayno kusoo raabgareyna aan idhaahdee div kale aynu sii furno. kadibna waxaynu dhex dhigaynaa image component. imagekan wuxuu ka imaanayaa next.js. next.js imagekeeda waa optimized. halka waxay optimize gareynayaa sizeka, layout, responsiveness-kiisa. runtii waana options badan uu leeyahay. haddaan hadda command aan idhaahdo wuxuu leeyahay haddii aad fiiriso waxyaalaha carada ka badan sida loadingkii,
lazy loading waxyaalahaasoo dhan wuu leeyahay. marka anaga waxaasoo dhan hadda ma isticmaalayno. waxaan leeyahay src giisa hadda image nooguma jiro, waan soo gashan doonaa. altagana aynu dhahno image mail, aynu xirno imagekaas. save haddaan dhahno imageka kana waxba inooga soo muuqda asagana. That's great. intaas haddii aan style garayno hadda, ugu horeyn aan stylingkan ka cunno, aynu dhahno backgroundkiisa ha noqdo white, and then aan soo socono waxaynu leenahay container ha noqdo asigana. intaas kadib waxaynu leenahay heightkiisa ha noqdo dhammaan screenka la qabsado. That's the issue. margin topna waxaynu leenahay 24 ha noqdo, ama aan dhahno padding top 24 ha noqdo. okay, mxna waxaynu leenahay amaba maxi widthkiisa ha noqdo. maxi width yaana dhihina margin xkiisa iyo margin rightkiisa isku mid ah noqdaan. okay, like that. intaas kadib waxaan guda gelaynaa diffkan oo qeybta soo raab garaynayo. waxaynu leenahay leftiga iyo rightkaa flexi container ka dhig. paddingkiisana waxaynu leenahay dhammaan left iyo right, top iyo bottom ha noqdo 8. mxna waxaynu leenahay auto. flexina waxaynu leenahay wrap oo responsive automatic ha noqdo sida ujeedaanba. okay, that's good. intaas kadib waxaan soo gashanaynaa imagekan. okay, qeybtan public haddaan tago halkan paste aan ku dhahdo waxaa haystaa shopping imagekaas. okay, haddii aan src giisa aan tago instead markaan intaan tegin ka hor, okay, imageka aynu kasoo import garayno, aan dhahnaba banner. imagekaas wuxuu ka imaanayaa from aan iraahdo waxaan kasoo import garaynayaa, aan tago dot slash kale public t aan tago, then aan kasii tago shopping .png save. aan bannerkan keywordkaas markaasi src gan aan dhex dhigta hadda. save haddaan dhaho boom, waxaa arkaysaa imageka inoo soo baxay. alright, haddaan stylingkeeni aan sii wadno, waxaan sii tegayaa qeybta leftiga. qeybta leftiga waxaan ku darayaa class name. class namekaas waxaan leeyahay flex. itemsna waxaan leeyahay center. widthgiisana ha noqdaan leeyahay full oo dhammaan hadego. lg ama large screenka markii lasoo gaarana waxaanu leenahay widthgiisa ha noqdo 102 amaba aan iraahdee 50% of the screen, like that. haddii aan textidan aan dhex galno class name aynu ku darno, iyadana waxaynu leenahay mark widthkeeda aynu ka dhigno 2xl. margin bottomna waxaynu leenahay 8. save, like that. waxaan hajiwantaan raacinayaa class name oo leeyahay text ama font sizekeeda ha noqdo 4x. aan iraahday text ama font sizekeeda ha noqdo 4xl. save, like that. waxaan rabaa inay ka yara weynaato. fontna waxaan leeyahay ha noqoto bold si uu markaasi usoo muuqdo. leadingna waxaan leeyahay markaasi snack, like that, si leadingkeeda uu bato. haddaa hover garaysana waxaa arkaysaa line heightkiisa inuu la mid yahay 1 something. trackingna waxaan leeyahay markaasi tie. then textigiisa waxaanu ka dhigaynaa gray of 800. large screen markii lasoo gaaro textida waxaynu ka dhigaynaa 4xl, like that. okay, aan soo jarnaba, aan soo jaro aan soo jaro, aan halkan kasii wadno. lg markii lasoo gaaro leadingkeeda waxaynu ka dhigaynaa tight iyadana. xl na markii lasoo gaaro text sizeka ama font sizeka waxaynu ka dhigaynaa 6xl, like that. camalena intaas way nagu filan tahay. halkan aan usoo gudagalno paragraphkan aynu ku darno class name aynu leenahay padding y of 5, textina aynu ka dhigno xl.
leadingkana aynu ka dhigno markaasi normal. waxaan rabaa inaan stylingkan aan dul maro. textina waxaynu ka dhigaynaa gray of 500. lg markii lasoo gaarana waxaynu ka dhigaynaa text of xl. extra large haddana markii lasoo gaaro waxaynu ka dhigaynaa textigeeda 2xl. save haddaan dhahno like that. okay, waxaan kaloo usii gudagelaynaa buttonkan aynu ku daraynaa class name aynu leenahay flexi. flexina waxaynu leenahay column ha noqdo. okay, waxaynu leenahay waxaynu linkigan ku daraynaa class name aynu leenahay markaasi padding y of 8, width of 52, widthgiisana 52 baynu ka dhigaynaa. textina waxaynu ka dhigaynaa white like that. then backgroundkiisana waxaynu ka dhigaynaa markaasi indigo of 600 ama 500 600 aan ka dhigno. padding x maaha, sorry, padding y maaha dhahay, padding x ka dhigo like that. okay, then sidebarka inaga xiro. then waxaan kaloo sii raacinayaa roundedkiisa inuu noqdo md oo geesahan kasoo yar dhuumo rounded md. like padding yna waxaynu ka dhigaynaa markaasi 4 maybe like that. that's enough. ugu dambeynna waxaynu u gudagelaynaa imagekan waa iska fududyaa. waxaynu raacinaynaa class name aynu leenahay flexi. itemskiisana waxaynu ka dejinaynaa center. width waxaynu ka dhigaynaa full. lg markii lasoo gaarana widthgiisa waxaynu ka dhigaynaa 50% of the screen like that. okay, waxaynu u baahanaa imagekan inaynu yara weyneyno. okay, si aynu u weyneyno waxaynu raacinaynaa image propertygan waxaynu leedahay next.js provide gareyso width iyo height. widthgiisa waxaynu ka dhigaynaa 600 maybe. save haddaan dhahno like that wuu yara weynaaday. heightkiisana waxaynu ka dhigaynaa markaasi 800 asagana. okay, like that. intaas kadib waxaynu u gudagelaynaa products sectionkeena ama pagekeena. qaybtan haddii aan aragno productskan waxaan ku haysanaa grid images. halkan waxaan ku haysanaa header ay ku qoran tahay all products. then productskii aynu soo feed garaysanay. okay, linkskii inay yara qarsamay markii loo hobargaray ay soo baxayaan. si arrinkaas aan uga hortagno search gareynaba headerkii aan tagno. then waxaan tegaynaa textiskii waxaan tegaynaa textiskii yes. text gray halkay ahayd waxaynu leenahay markaas waxaanu leenahay textida waxaynu ka dhigaynaa instead of gray aan dhahnaba black maybe. black haddaan dhahno save. okay, waxaa arkaysaa inay soo muuqatay. halkaas aan uga sii socono oo aan u gudagalno productskii. okay, waxaan rabnaa productska markii lagu dhufto inuu ina geeyo products page. si aan ku noqono headerkii. then hrefkii linkigiisa waxaynu ka dhigaynaa /products. save. haddii aan hadda ku dhufano waxaynu geenayaa products kaasoo aana jirin. alright, kan aan inaga sii xiraba. waxaan rabaa in roadkan aan sameyno. si aan roadkan u define gareyno labadanba aan iska xirno. then aan iska minimize gareyno. src dan baynu tegaynaa. next.js markaad joogto uma baahnid routingka inaad yani configuration ama aad ku sameyso amaba aad isku xirto bathkiisa iyo waxyaalahaas. just waxaad tegaysaa app directorygan. waxaad sameynaysaa file. tusaale ahaan haddii aan sameeyo kale folder aan ugu magac darayo products weyneeyo products aan dhaho. kadibna waxaa sii dhexgelinayaa file magaciisa aan u bixinayo page.js. hadda haddii aan dhaho rfce save oo aan ku dhex qoro h1 products page. okay, save haddaan dhaho refresh aan dhaho products. haddaan refresh aan dhaho weli sooma bixin. sababta waxay tahay halkan waxaan u magac daray pages. haddii aan u magac daray page oo refresh aan dhaho waxaa arkaysaan hadda products page. next.js routingkeeda siduu u shaqeeya waxay tahay haddii anything halkan aan ku magacaado wuxuu automatically noqonayaa route.
page.js tana markaasi ma aha row la define garaya, keliya waxaa lasoo akhrisanayaa parentigaas oo ah products. haddii pagekan aan isku dayo magac kale inaan u bixiyo, tusaalaan aan dhaho product1 oo kale .js, waxaa arkaysaan inuuna sii jiri doonin haddii aan sii tago product1kan, inuuna jiri doonin. sababto waxay tahay pagekaas waa convenient name. markii aad fileka soo magacaabato waxaa ku xijinaysaa page.js. page.js taasoo markaasi divide gareynayo in kan road ka dhigayo oo magaca markaasi index oo kale ah. okay, tusaale ahaan waxaa rabnaa in authenticationka, register iyo login ay noqdaan, ay isku dhex galaan one component. si aan u sameyno waxaan dhahaynaa keliya aan dhahno rename, waxaan leenahay auth. hadda authkan ma aha route, kadib baa markaas sii dhihi karnaa maybe register, then registerka pagekan aan sii dhexgeliyo. hadda markii aan tagno register, igo waxaa arkaysaan registerkii. waa sida aad u sameysan karto sub routes oo magacaani markii aad kusoo xirto curly braces lama soo akhrisanayo. that's basically Next.js routingkeeda. okay, aan iska masaxo waxyaalahan uma baahni. hadda productskaas wuxuu inoo sameynayaa route products la dhaho. productska pagekan hadda waxaa rabnaa inaan edit aynu ku sameyno. si aan ugu sameyno ugu horeyn pagekan aa ujeedaan sababta aan ugu bixinay waxay tahay Next.js filal waxaa jira yani filal oo ay sameeyeen oo filekaas haddii aad ugu magac darto that means ay wax gooni u aqoonsanayaan. tusaale ahaan waxaa jira loading files, file loading.js ah, waxaa jira file error.js ah oo markaasi fududeynaya sidii errorska iyo loading screenka u display gareyn lahayd, kaasoo aan ku tusi doono. basically pagekan waxay tahay wuxuu cadeynayaa productskan inay page tahay, asiga laakiin ma naqanayo route gooni ah, waa segmenti. hadda waxaan joognaa products pagekan aynu ka shaqeyno, waxaynu leenahay divkan main aynu ka dhigno maybe, then instead of h1kan waxaynu kusoo raab gareyneynaa div aynu ka dhigayno stylinka a kor wadnaba, class name aynu ku darayno bg, waxaynu ka dhigaynaa white. okay, roba nimid alxamdulilah. then waxaanu sameyneynaa inaan sii furno halkan qaybtan ay naga minimize gareeyaba. padding qaybta y-ga ah waxaynu ka dhigaynaa 2 alif, textina waxaynu ka dhigaynaa markaasi grey of 700. waxaan kaloo kusii daraynaa small screenka marka la joogo padding y baynu raacinaynaa aynu dhahno 16. large screenkana marka la joogo padding y-giisa waxaynu ka dhigaynaa 20. waxaan kaloo sameynaynaa halkan inaan raacino div kale, divkaas oo aan kusoo raab garayn doono div kale oo ah qaybta leftiga ah oo topka aan idhaahday oo textiga gelayso. waxaan sii gelinayaa h1 kaasoo noqon doonto markaasi ku dhex qormaysa all products taan ku qorno save hadanaano textiga weli soo muuqanayso, laakiin waxaa arkaysaan inay colorkeeda white iyadan uu yahay. waxaan raacinaynaa divkan mainka ah class namekaas waxaynu ku daraynaa markaasi mxkiisa inaynu auto ka dhigno. max widthkiisana waxaynu ka dhigaynaa screenka dhan hadagaynu leenahay max width aan dhaho screen xl baynu leenahay. then waxaynu kaloo sii raacinaynaa markaasi padding x-ka aynu ka dhigno 4 like that. small screenka markii la joogo padding x-kiisa ha noqdo 6. large screenkana markii la joogo padding x-kiisa ha noqdo aynu leenahay large lg haddaan ka dhigno padding x-kiisa ha noqdo 8. alright, save hadanaano dabcan padding x-ka uma baahnin. okay, waxaynu kusii raab garanaynaa class name aynu leenahay margin x margin right auto aynu ka dhigno. waxaan kaloo raacinaynaa maxi widthkiisa waxaynu ka dhigaynaa medium
textina waxaynu geenaynaa markaasi center save. Okay, waxaa arkaysaa hadda inay textida xogaa center ka imaaday. Aynu kusii darno stylingka oo headerkan. Waxaynu raacinaynaa class name aynu lahayno fontigiisa waxaan ka dhignaa serif. Waxaa kaloo ka dhigaynaa textigiisa 2xl amaba extra large. Max widthkiisana waxaynu ka dhigaynaa medium. Text iyadana waxaynu geenaynaa center. waxaynu kaloo raacinaynaa font inaynu ka dhigno bold. waxaa kaloo raacinayaa small screenka markii la joogo textida ha noqoto 3xl. you see waxaa halkan ka arkaysaa textigii. sababtu waxay tahay pg-gan black aynu ka dhignaba. textida black aynu ka dhigno like that hadda waa arkaysaan. intaas haddaan ugu soo gudubno waxaan kaloo imaanaynaa qaybtan leftiga ah. qaybtan waa qaybta productska inoo dhex digi doonaan. products haddaan ku dul qorno productskan waxay naqanayaan grid. waxaan rabaa in grid waxyaraan ku introduce garayo. halkan waxaynu sameysanaynaa div. divkaas si uu ugu soo durko core contentskan waxaynu raacinaynaa class name aynu dhehayno margin top of 10. waxaynu leenahay markaasi grid. grid haddana waxaa macnaheedu tahay display grid. grid markii aan dhahno wuxuu noqonayaa as grid. waxaynu raacinaynaa class name oo aynu ka dhigayno markaasi grid colors ama grid template columns ay la macno tahay in css. waxaynu leenahay initially 1 ahaada small screenka markii la joogo. gap baynu u dhexaysiin doonaa aynu leenahay 6 grid meeshaan d ka maqan. markii la imaado small screenka wixii ka yara weyn waxaanu leenahay grid columnskiisa ha noqdaano 2. okay, markii la soo dhaafo medium screenka iyo wixii ka weyn waxaanu leenahay markaasi grid columnskiisa ha noqdaan 3. large screen markii la joogo waxaanu leenahay margin top of 16 save. haddii aan dhahno waxba soo baxayaan sababtoo waxba kumayna dul qorin. hadda haddii aan dhahno h1 hello duplicate hello waxaa arkaysaan inuu degayo qaybtan iyo qaybtan oo laba degayo sababtoo small screenka ka yara weynta. haddii aan soo zoom gareynana waxaa arkaysaan inuu hal degayaan. that's basically grid. haddii aan sii weyneyno oo aan sii badino waxaa arkaysaan 3 inay qabsanayaan sababtoo ah waxaynu nidhi small screenka markii wixii ka yar ha noqdo 1 column oo mid waliba hal meel ha dego. waxaa arkaysaan inay mid walba hal meel u degay. small screenka iyo wixii ka yara weyn 2 ha dego. haddii hadda aan soo yara weynino waa kana small screenka waxaa arkaysaan in qaybaha waa degay. markii wixii kasii weynaadana waxaynu dhahnay 3 ha dego. that's basically grid. waa arkaysaa siday u fududahay Tailwind CSS markaa isticmaalayso inaad layoutkaaga responsive ka dhigto. okay, waxaa u baahanaa markaasi hadda inaan isticmaalno API-geena. API-geena si aan u isticmaalno waxaynu booqanaynaa website-kan la yidhaahdo Fake Store API. halka linki ugu horeeya haddaan ku dhufano. okay, waxaa arkaysaan inuu waxyaalo badan na siinayo inaan soo feed garaysan doono karno productskii, userskii, loginkii, routeska waxaa kamid ah productskii. haddii aan ku dhufano wuxuu inoo soo return garanayaa products. okay, URL-kan markaas soo koobiyeysan karnaa waa iska xiri karnaa hadda. haddii aan halkan textidan margin top of 10 aynu siinaba. haddii aynu textidan siino padding top of 10 si ay kor usoo soo degto maybe aan dhahno 16 xitaa 16 aan dhahno. alright, that's great. waxaan rabnaa inaan kasoo feegaraysano halkaas maadaama uu pagekan yahay server component. si fudud baynu datada usoo feegaraysan karnaa. waxaynu tegaynaa pagekan korkiisa waxaynu leenahay assign. horta functionkan waa async oo datada waan sugaynaa. function baynu leenahay inuu u magac darayno get products. maybe haddaan saas ugu magac darno halkaan aanu leenahay aan yara weynayo. halkaan aynu leenahay markaasi await fetch.
waxaan kasoo fetch garaysanaynaa this endpoint. halkan haddaan variable aan u dhiibano oo aan dhahno variablekan waa responsigii oo intaas la mid ah, we are missing something. sababta waxaan misi karayn waxay tahay functionka ma aanan dhammaystirin. Okay, it works now. haddii waxaynu leenahay una res aynan ahayn okay, waxaynu noo soo return garaysaa throw new error. new error oo noqonayo errorkaas oo noqonaya markaasi failure to fetch. maybe waa ku fail garoona inaan soo fetch garaysan datadan. haddii ayna okay ay tahay, that means waxaa noo soo return garaynaysaa aynu leenahay res.json safe. intaas kadib hadda waynu isticmaali karnaa datada. si aan u isticmaalno waxaynu tegaynaa halkan, waxaynu leenahay markaasi const data oo await ah ayaynu sugayno datadaas, get products like that, await equal halkan ka maqan. haddii halkan await u noqoto sida ujeedo waxaa lagu leeyahay await expression are only allowed with async functions. that means waa inaan functionkan async aanu ka dhignaa. si aan ugu dhignaynu leenahay async, it's gone. save haddaan dhahno, hadda haddii aan console log aan kasoo saarno datadii, console log dabcan waa server component, hoostaa baynu ka eegi karnaa. haddii haldan aad fiirisaan waxaa arkaysaan moogi, waxaa halkan ka arkaysaan inuu inoo soo fetch gariyay dhammaan datadii, titlekii, pricekii, descriptionkii, categorygii, imagekiisii, ratingkii iyo waxyaalahaas oo dhan. intaas kaliya u baahantaa si data usoo fetch garaysto. okay, intaas kadib aynu u gudagalno datadan inaynu soo display garino. waxaan u baahannahay inaan instead of hellowiskan aan iska tirtirno, console log aan iska tirtirno bas oo ay tusay kaliya helloda. markaan iska tirtirno waxaynu ku map garaynaynaa data.map. map basically waa higher order component. waxaa loogu talagalay data json ah ama objects ah inuu ku dul wareego, then valueska ku jiro uu inoo soo saaro. waxaynu leenahay initially aynu bagaxsano products inoo soo fetch garay, then waxaynu leenahay h1 for example. h1 kan waxaynu dhex dhigaynaa products dot no aynu dhex dhignaba products dot title, then ladaasi inuu noo soo fetch garina. sababta errorkan noo siinayo waxay tahay waxaynu u baahannahay key parameter si aan ugu darsano. aynu div kusoo raab garayna h1kan halkan dhex dhigno, then aynu halkan raacino keyga wuxuu noqonayaa markaasi products.id. it's gone now. sida ujeedaba waxaa hadda noo soo fetch garoobay dhammaan productskii titlekooda. haddii aan refresh aan dhahno, mujeedaa datadan way talaa, lama doonayo. sababta waxay tahay next.js automatically waxay cage garaynaysaa responsigan. next.js dabcan waxay provide garaysaa options badan amaba features badan one data fetch la joogo. tusaale ahaan waxaan rabnaa markii datadan intayna imaanin ka hor in loading screen aan tusno. si aan u tusino instead aan amaba use state aan isticmaalayn ama libraries kale aan isticmaalayn, simply waxaan tegaynaa folderkan productska, waxaynu samaysanaynaa file la dhaho loading.js. kadib baynu leenahay rfce aynu soo return garaynaba h1 aynu leenahay loading. save haddaan dhahno, filekan automatically inta datadan lasoo wado asigaa la tusaa loading. refresh haddaan dhahno, datadan way inoo kaysan tahay, aynu raacinaba no store. haddii aan dhahno cagekiida aynu ka dhigno no store, save, refresh haddaan dhahno, waxaa arkaysaan loading skeleton inuu tusayo. that means waa huge advantage. ma u baahnid any other configuration inaad sameyso, kaliya waxaa sameynay filekan la magac daro loading.js. automatically next.js waxay garanaysaa filekan inuu load garaynayo productskan, automatically markii datada lasoo wado waxaynu tusinaysaa folderkan. dabcan waxaa kaloo jira file la dhaho error.js. rfce haddaan dhahno, h1 aynu soo return garayno, this is error aynu dhahno, maybe save.
dabcan error message waa client component, that means waxaa qasaba inaynu raacino use client. Okay, aynu raacino meeshaan sare aynu tagno use client aynu leenahay save. waxaa arkaysaa loading inuu nutusinayo boom soo fooji karaysmaayo. haddii aan halkaa cilad aan raacino waxaa arkaysaan error page inuu nutusinayo. That's cool guys, that's cool. ma u baahnid inaad configuration sameyso. loadingkii file cusub aa ku handle garaysay, errorkii file cusub aa iska samaystay, filekaas keliya errorkii baad wacatay this error wuxuu ku tusinayaa haddii error uu ka jiro halkaas filekii waxaa usoo baas garayn kartaa errorska. waxaan just rab inaan tusiyo waa aniga waxaa isticmaalaya hadda loadingkan keliya. maybe inuu kii wax cage garaystay. haddii aan nextda aan iska yara dileyd haddana then aan restart aan ku sameeyo serverkayga, refresh aan dhaho, still waxay nutusinaysaa failure to face sababtoo ah issuega waa u jiraa. okay, sida ujeedaaba loading datada wuu inoo soo celinaya. hadda waxba ma store garaynayno, waxaynu dhahnay no cage. haddiinu no cagekan ka masaxno fiiri maxaa dhacay, refresh no loading, datada lama doonayo, already waa persisted oo way sii taalaa. alright, aynu hadda style garayno si probiana aynu usoo display garayno. alright, ugu horeyn datada markaynu ku map garayno kadib instead aan h1ka soo return garaynayni waxaynu rabnaa imageka inaynu soo hormarino product imageka. that means waxaynu raacinaynaa div aynu sii dhexgelinayno imagekan oo ka imaanaya next imagekan src giisa wuxuu noqonayaa markaasi products.image an altigiisa waxaynu ka dhigi karnaa empty, then aynu soo xirno. haddii aynu soo xirno ma inoo shaqayn doono. waxaana leeyahay image with src gan wuxuu u baahan yahay width property iyo height. that means waxaynu raacinaynaa widthgiisa inaynu ka dhigno 100%, heightkiisana aynu ka dhigno 100%. si badanaano waxaan kaloo u baahannahay configuration kale. next.js si imagekan ay optimize garayso, imagekan halka laga soo fetch garaynayo waa halkan, mana inoo register garaysno domainkan. waxaan u baahannahay domainkaas inaan register garaysano. waxaana leeyahay imagekan halka aad ka doonayso oo aad kusoo fetch garaynayso next image, hosting namekan oo fake store api.com ah lama configure garayn. next.config.js wuxuu ku siinayaa issuega si aa u xalin karto. haddii aan linkigan aan raacno oo halkaan aan tagno waxaa arkaynaa si aan u fix garay karno. okay, just waxaa u baahannaha intaan inaan soo koobiyeysano, then halkaan aan iska xirno. waxaan furaynaa next.conf.js. halkaan configurationka marka intaas ku paste garaynaynaa. module exportska save haddaan dhahno waxaa u baahannaha markaasi domainka inaan ku bedelno domainkan oo aynu kasoo fetch garaysanayno. paste haddaan ku dhahno save refresh boom, sida ujeedo waa productskii imagekooda wayna soo fetch garaysanay. that's the way next.js imageska u optimize garaynayso. loading filekan iska xirno. imagekaas markaynu soo displayno kadib waxaynu u baahannahay inaynu raacino kale. waxaynu raacinaynaa qeybta markaasi topka oo cell hal ay noogu qoran tahay. waxaynu raacinaynaa div aynu dhahno divkaas aynu sii raacino paragraphkaas waxaa noogu soo dhex qormaayo cell oo markaasi halkaan aan ugu talagalnay inay kaarka kasoo muuqato. save, waxaa arkaysa halkaa inay kasoo muuqato. hadda later oona style garayn doonaa, then aynu soo socono waxaynu sii sameysanaynaa div kale, aynu sii dhexgelinayno div kale oo paragraphtii halkan ay inoo dhexgeli doonto. paragraphka waxaynu ka dhigaynaa $sign, then products.price. save, waxaa arkaysaan pricekii inoo soo baxay. cool. waxaan kaloo sii raacinaynaa h3gan oo noqon doonto product titleka, aynu ka dhigno markaasi productskii.titlekiisa. okay, save, waxaa arkaysaan titlekiina inoo soo baxay. that is great.
intaas kadib ugu dambeyn waxaynu u baahannahay button aynu ku dhufan karno si aynu ugu sii navigate garano product descriptionkaas. Okay, waxaynu raacinaynaa markaasi halkan button, waxaynu raacinaynaa buttonkaas oo aan ku dhex qori doono add. Arkaysaan buttonkii add ay ku qorneed. Okay, hadda aan u guda galno markaa stylinka. Degtadan main divka inoo hayo waxaynu raacinaynaa class namekaasoo aynu leenahay relative, positionkiisa ugu horeyn relative ha ahaado, flexina ha noqdo, flexigiisana ha noqdo markaasi as a column, flexigiisana ha noqdo as a column, sidebarkan command B aan dhahno, flexigiisana markii aynu ka dhigno column, overflow wax walbo isdulfoolna aynu ka dhigno hidden, roundedkiisana waxaynu ka dhigaynaa markaasi edge border baynu u yeelaynaa markaas ugu dambeyn save like that. waxaa ujeedaa inuu border hadda yeeshay. Okay, aynu halkaas ugu soo gudagalno imageka, waxaynu raacinaynaa class name, aynu leenahay aspect, waxaynu ka dhigaynaa square, waxaan kaloo sii raacinaynaa overflow isagana. Imagekan asiga laftarkiisa gudihiisa aynu raacino class name, aynu lahaynaa markaasi class namekaas heightkiisa ha noqdo full, widthgiisana sidoo kale full ha noqdo. waxaa arkaysaa inuu dhammaan degay. Objectgiisana waxaynu leenahay fill oo fit ha ku noqdo like that. I think that's enough. waxaan kaloo intaas kadib style gareyn doonaa promotionkan saleska ah. waxaynu raacinaynaa class name, aynu leenahay positionkiisa absolute ha ku noqdo parentiga. haddii aan save dhahno waxaa arkaysaa inuu halkan degay. Absolute markii aynu dhahno kadib top waxaynu kasoo durjinaynaa 0, waxaa arkaysaa inuu halkan degay. waxaan kaloo u baahannahay margin inaynu raacino 2 ah. waxaan kaloo leenahay markaasi bggiisa inaynu ka dhigno white, roundedkiisana white ma ka dhigin, w baan ilaabay. Okay, roundedkiisana waxaynu ka dhigaynaa full, save. waxaan u baahannahay inaan paragraphkan si style gareyno, aynu raacino class name, aynu leenahay roundedkiisa waxaynu ka dhigaynaa full. waxaynu kaloo raacinaynaa backgroundkiisa inaynu ka dhigno emerald, aynu leenahay 500. paddingkiisana waxaynu leenahay 1. waxaan kaloo sii raacinaynaa markaasi text inaynu ka dhigno sm. waxaan sii raacinaynaa font oo noqon doonta bold. waxaan raacinaynaa textida uppercase inay noqoto uppercase, save haddaan dhahno like that. waxaanu rabnaa markaasi okay, backgroundkan inooma shaqeynayo, waxaan ka tagnay halkaana markaasi waa saas like that. Okay, hadda inoo soo baxsaa ujeedaan. waxaynu raacinaynaa oo kale trackingkiisa inaynu ka dhigno tracking wide like that. waxaynu kaloo raacinaynaa ugu dambeyn text inaynu ka dhigno white. waxaan kaloo sii raacin doonaa small screenka padding y-giisa inaynu ka dhigno 1. small screenka wixii ka weyna padding x-kiisana waxaynu ka dhigaynaa 3. save like that. This is cool. sida ujeedaanba mid waliba selka uu kasoo muuqday. Alright, maybe fontigan aynu yaraynaba, fontiga aynu ka dhignaba 8 pixel. Okay, like that. That's cool. waxaan halkan sii gudagalaynaa markaasi qaybta styling descriptionkan ah. Okay, descriptionkan haddii aan imaano waxaynu raacinaynaa class name, aynu leenahay let us add class name, aynu leenahay margin y qaybta top iyo bottomka ah, aynu raacino 4. mxna waxaynu leenahay auto, flexible aynu ka dhigaynaa, widthgiisana waxaynu ka dhigaynaa markaasi 10 o 2 olive. waxaynu raacinaynaa oo kale flexigiisa inuu noqdo as a column. intaas kadib baynu sii raacinaynaa itemski inay degaan start, save haddaan dhahno like that. waxaynu sii raacinaynaa oo kale justify, aynu leenahay between space oo ugu dhexmar labadaba. Okay, intaas kadib qaybtan priceka ah waxaynu raacinaynaa iyadana class name, aynu leenahay markaasi margin bottom of 2, flexible aynu leenahay iyadana save like that. textida ku dhex jirto pricekana waxaynu raacinaynaa class name,
aynu leenahay markaasi margin right of 3 textina waxaanu leenahay ama font size sm small screen small sm ka hadda fiirso waxaad arkaysaa inay macnaheedu tahay 14 pixel. waxaan kaloo sii raacin doonaa textida inay noqoto aynu ka dhigno gray of 700 like that, maybe aan ka dhignaba 400. waxaan sii gudagalaynaa description-kan iyadana waxaanu raacinaynaa same class name aynu leenahay margin bottom of 2 textina waxaanu ka dhigaynaa sm fontina waxaanu ka dhigaynaa semi bold like that. waxa kaliya hadda inoo dhiman waxay tahay guys inaynu style gareyno buttonkan. si aynu buttonkaas u style gareyno waxaynu raacinaynaa buttonka haddii aan u nimaadno margin bottom of 2 waxaynu sii raacinaynaa class name aynu leenahay flexi heightkiisana waxaynu ka dhigaynaa 10 padding x baynu raacinaynaa oo 3 ah waxaynu sii raacinaynaa width full ah itemsna waxaynu leenahay markaasi stretch waxaynu sii raacinaynaa overflow hidden ha noqdaan roundedkiisana waxaynu ka dhigaynaa md waxaynu kaloo sii raacinaynaa text ama font colorkiisa aynu ka dhigaynaa gray of 500 like that. intaas kadib textidan intaan ku dhex qori lahayn waxaa rabnaa inuu linki ahaado inoo sii redirect gareeyo. marka waxaynu leenahay a hrefkan aynu ka tirtiraynaa oo meel number inuu inageeyo. waxaan kusii dhex qorinaa markaasi linkigii oo ka imaanayay next link. hrefkiisana for now waxaynu ka dhigaynaa empty aynu soo xirno markaas aynu ku dhex qorno maybe aynu dhahno go detailed aynu dhahno maybe detail is safe like that. eedaanaynu waxaynu raacinaynaa class name aynu leenahay flexi ha noqdo widthgiisana waxaynu ka dhigaynaa full itemsna waxaynu dejinaynaa center save hadanano like that. waxaynu kaloo raacinaynaa margin bottom of 2 vgna waxaynu ka dhigaynaa markaasi maybe haddaan ka dhignaba colorkii aan u yeelnay selkan aynu leenahay emerald of 500 meeshaan sorry weyaan save hadanano like that. this is great markaan okay. waxaynu sii raacinaynaa class name aynu leenahay markaasi textida aynu ka dhigno xs waxaynu kaloo sii raacinaynaa text inaynu dhahno white waxaynu sii raacinaynaa oo kale text inaynu dhahno center. haddii aan dhahnaba padding waxaan kusii daraynaa padding qeybta y-ga ah aan ka dhigno 2 maybe padding qeybta y-ga halkaan ugu soo darno of 10 padding y of 2 okay maya yes heightkan aynu ka dhigaynaa 14 save like that. waxaa arkaysa hadda inuu yaro weynaaday. that sound is good. waan soo feejgaraysanay dhammaan productskani intaan u gudagelin single product inaan soo feejgarayo waxaan rabaa inaan waxyar idin introduce garayo. Next.js keliya ma aha front end framework, waa full stack framework. Next.js waxay provide garaysaa API routes. API routes macnaheedu waxay tahay haddii aad isticmaalayso Next.js waa rich framework uma baahnid inaad la isticmaasho any other backend. sababtoo Next.js iyada laftarkeeda ayaaba isku ah backend iyo front end. waxaan rabaa inaan ku tuso how, inkastoo aanan backend hadda aan u gudagali doonin, laakiin waxaan rabaa inaad hordhac yar ay ku noqoto. markii aan joogno app directory-gan oo ah app directory macnaheedu waxay tahay /tan oo any route aan raacsanin, waa home page-ka oo kale. waxaanu sameynaynaa folder in ugu magac darayno API. folderkan API-ga waxaanu sii dhexgelinaynaa any other route aynu rabno. For example aynu dhahno users, then aynu raacino waxaynu u baahannahay file kale si uu u aqoonsado in route waxaan raacinaynaa route.js. kadib halkan
wax walbo aan ku define gareyno waxay noqonayaan route. For example aynu dhahno export async functionkan waxaynu ka dhigaynaa waa get. waxaan rabnaa inaan wax soo fetch gareysano, then waxaynu soo return gareynaynaa next response oo ka imaaneysa next server. next response .json teeda waxaynu leenahay aan soo return gareyno name oo ah markaasi hello abdi welcome. Okay, for now haddii aan booqano URL keena, halkan aan tagno booqano localhost 300, then aynu booqano API, then aynu booqano users. inta haddaan dhahno okay users ara ka maqan, you see wuxuu inoo soo return gareynayaa hello abdi. That's cool, that is cool. haddii aad isticmaaleyso Next.js, forget about back end, it's already back end. waxaan arkaynaa server inaan sameysan karno, waxaan rabnaa aan soo return gareyn karno hello refresh, hello welcome, waxaan rabnaa soo return gareyna. That is basically how API routes work. For example markii aan joognay pagekan, waxaan rabaa instead oo API-gan aan doonanayna inaan API anaga aan leenahay aan ku sameysano Next.js gudaheeda, aan tago fake store productskan, then JSON-tan aan soo copy-yeystaba, waxaan rajeynayaa inay la socoto, then aan tago routeskaygi, instead aan soo return gareynayo namekan, halkan paste aan ku dhaho control B command shift B format document save. haddii aan dhaho for now, waxaa arkaysaa JSON-tii inay halkaa inoogu soo return gareysmaysto. For now haddii refresh aan dhahno, you see waxaan arkaynaa datadeeni. That means hadda waynu isticmaali karnaa API routekeena. You see guys, it is actually like that. waxaan wadnaa hadda inaan isticmaalno API routekan, instead aan isticmaalaynay fake store API products. halkan haddii aan paste aan ku dhahno refresh, you see waxaan helaynaa exact same result. waxaan uga maaranaa API inaan meel kale aan ku sameysano. waa arkaysaa siday u fududahay. getkan halka ay tahay, halkaan ged raacinaysaa keliya, wuxuu kasoo helayaa endpoint-gan oo userska ah. haddii aad u baahan tahay postne, halkaan ku isticmaali kartaa. MongoDB waa la isticmaali kartaa. This is huge guys. waxaan rajeynayaa in halkaan start ay ku noqoto, mar rabo inaan full thing aan ku siiyo. That's basically how API routes uu shaqeynayo. intaas kadib aan u guda galno inaan single product, markii productigan lagu dhufto single product uu ina geeyo, aynu iska xirno endpoint-gan si markaasi single product tusaale ahaan markii la aado /1 uu noo geeyo routekaas productigaas iyo detailskiisa. waxaynu u baahannahay halkaan inaynu tagno aan zoom no I don't want this, kan aan zoom kusoo dhaho, then halkaan waxaynu ku sameynaynaa file aynu uga magac darayno markaasi folder aynu uga magac darayno maybe ID. I will show you ID waxa ay la macno tahay. haddii halkan aan ku sameyno file la yiraahdo page.js oo aan yiraahdo RFCE reactive functional component single product, save haddaan dhahno oo hadda aan booqanoba 3, waxaa arkaysaa single product inoo soo saarayo. okay, sababtu waxay tahay filekan wuxuu ka turjumayaa productska markii la soo aado. ID-gan waa any other number oo productgan la raaciyo ha soo saaro pagekan baynu leenahay. waxaanu rabnaa linkigan inuu aado any ID-ga uu productiga wato, then ID-gaas uu inoogu soo fetch gareeyo datadiisa. si aynu sidaa u sameyno, waxaynu tegaynaa productskeena. ugu horeyn waxaynu leenahay linkigan hrefkiisa ha noqdo maybe waxaanu leenahay okay hayna geeyo, aynu leenahay products.id. ladaasi hadday shaqeynayso save. haddii aan usoo noqono productskii, aynu ku dhufano single product.id, maybe aynu dhahno to string. okay, hadda haddii aynu ku dhufano wuxuuna geenayaa single productki like that. sababtoo ah initially string maaha.
okay waxaynu u baahanahay markii lagu dhufto product 1 id-gaasi inuu soo akhristo si uu usoo akhristo waxaynu tegaynaa halkaan aynu tegaynaa waxaynu leenahay paramis save haddanaano halkaan console log ama kasoo saarnaba paramiska save aynu jegareyno waxaa arkaysaan inuu inoo soo return gareynayo ma ogina arkaysaan waxaa arkaysaan inuu inoo soo return gareynayo id ay ku qoran tahay 1 simply waa gareyn karnaa waxaynu leenahay paramis.id save waxaa arkaysaan 1 halka inoogu soo return gareynayo marka waxaynu u baahanahay single productgan dhatadiisa inaynu soo fetch gareysano si aynu usoo fetch gareysano the same thing kan waynu soo koobiyeysan karnaa intaan aynu soo koobiyeysanaba aynu halkaan paste ku dhahno get single product baynu u bixinaynaa get single product endpoint-ga laga soo helayna waa fake store API-gii ma rabno inaan API endpoint samaysano kale fake store API baynu kasoo helaynaa .com/products maybe /products.com/products okay marabna productska inaan soo fetch gareysano waxaa u baahanahay single product id inaan soo fetch gareysano haddii hadda aan booqano oo hadda aan dhahno /2 wuxuu inoo soo fetch gareynayaa detailska productgaas like this baynu rabnaa inaynu usoo fetch gareysano si aynu ugu soo fetch gareysano waxaan rabnaa paramiskan inaynu u baas gareyno single product functionkan halkaas aan iska xirno halkeenu aynu ka wacaynaa markaasi functionkan waxaynu leenahay data aynu sugno ileen waa assign then waxaynu leenahay markaasi get single product waxaynu u baas gareynaynaa paramis.id okay functionka waxaynu u baahanaa inaynu ka dhigno async okay meta is not valid baana leeyahay sababta waxay tahay kan waa object weeyaan waxaan u baas gareynaynaa si caadiya haddii aan saa aan ka dhigno kale id-gan aan ka reebno hadhow halkaas aan access gareyno what's wrong okay halkaan intaan committee aynu iska saarno like that waxaynu u baahanahay paramiska inaynu access gareyno halkaan aynu tegaynaa waynu soo qabsanaynaa markaasi details nala soo baas gareeyay haddii aad console aan kasoo saarno waxaa arkaysaan id-gi 3 waxaynu rabnaa inaynu raacino id-gaas 3 si aynu u raacino like that then waxaynu sii ka tirtiri karnaa hadda intaas waxaynu leenahay /ta marka waxaa inoo raacaya wax walbo paramis id-gan lasoo geliyo okay waynu dhahno paramis.id halkaas inooga soo qabo dheetada save haddii aan dhahno aynu halkaan uncomment ka dhigno sababtuna waxay tahay waxaan u baahanahay halkaan https inaynu ka dhigno you see haddii hadda fiiriso dheetadii waa la inoo soo fetch gareynaya waxaa arkaysaa loadingkii hadda wuu yaro baxay haddii laakiin aan ka dhigno no store aan ka dhigno dheetadan key haddii aynu ka dhigno is equal to no store anoo keedin dheetadan refresh markaa dhan waxaa arkaysaa loadingkii you see waxaan dhan waxay ka imaanayaan single file loadingkan aynu sameysanay waxaa lagu asaan gareynayaa dhammaan productskan requestiska laga diraayo that's easy in loadingka la soo display gareeyo waxaa u bedelan kartaa skeletal loading loader caadiya iyo waxyaalahaas oo dhan halkaasaa ka wacan kartaa that's easy to use guys hanoo store gareeya dheetadaynu rabnaa inuu inoo hayo oo requestis badan uunu dirdirin then waxaynu rabnaa dheetadan inaynu ku dul wareegno haddii aan hadda dheetadan aynu tagno aynu console log kasoo saarno aynu aragno wax inoo guda jira waxaa arkaysaan halkaan inay inoo guda jiraan id-kii titlekii pricekii descriptionkii imagekii iyo waxyaalahaas okay then aynu soo fetch gareysano instead aan halkaan kasoo return gareynaynay single oo h1 ay ku qoran tahay waxaynu u baahanaa inaynu soo return gareyno dheetadaas dheetadan sidaa ujeedaanba ma aha dheeto array ah oo lagu dul wareegayo waxaynu leenahay markaas haddii dheetadaas ay jirtoba then waxaa inoo soo return gareysaa divkaas oo inoo dhexgelaya div kale aynu sii dhexgelin doono div kale oo qeybta imageka ah
image baynu leenahay then imagekan oo next image ka imaanaya src giisana waxaynu ka dhigaynaa data dot image then aynu soo xirno aynu raacino width iyo height widthgiisa waxaynu ka dhigaynaa 100 heightkiisana waxaynu ka dhigaynaa 100 okay laba maraan objects ka dhigay save haddii aan dhaho you see waxaa arkaysaa productigii khaaska ahaa haddii aan halkaan tagno productigi aan ku dhufano waxaa arkaysaa imagekiisii haddii aan ku noqono kan aan tagno waxaa arkaysaan imagekiisii that's really cool hoos aan iska xirno then aan u gudagalno oon sii dhamaystirno markii imagekan iyo laftigan laga soo baxo waxaan u baahannaha in uu ku dhex jiro markaasi meel markaasi shadow ama border uu yeesho si aan u yeelno waxaynu leenahay halkaan soo raacinayna div kale dib aynu ka install garayn doonaa divkan halkaas ha inoo joogo halkaan haddii aynu imaadno waxaynu raacinaynaa div oo qeybta markaasi ah titleka divkan waxaynu sii raacinaynaa div kale oo inoo soo dhexgeli doona h1 iyo oo ku dhex qormi doonto markaasi data dot title save haddii aan dhahno aan xirno kan like that waxaa arkaynaa titlekini inuu inoo soo baxay then waxaan kaloo u baahannahay halkaan inuu inooga soo baxo descriptionkii waxaa leenahay paragraph data dot description haddii aan typing aan qasaxay yes waa kana descriptionkii isagana intaas kadib haddii aan kasoo baxno qeybtan titlekii iyo descriptionkii waxaan u gudagalayaa markaasi qeybtii priceka ahayd aynu sii raacino div kale oo inoo sii dhexgelisa div span baynu raacinaynaa spankan ha inoo dhexgasho baynu leenahay dollar sign thenna waxaa inoo sii dhexgelaya baynu leenahay span kale oo aynu dhexgelin doono data dot price qiimihii markaasi uu ku fadhiyay save you go waxaa kaloo u baahanaa span kale inaynu sii raacino spankan ha inoo dhexgala markaasi dot 99 that's cool okay ugu dambeynna waxaynu u baahannahay halkaan inaynu sii raacino markaynu kasoo baxno intaan waxaynu raacinaynaa bottonkii markaasi oo iska yara sample ah bottonkan waxaynu soo qaadan karnaa marwalba stylingka inaan idinku wareeriyo hadhow waxaynu soo qaadan karnaa bottonkan then waxaynu ku paste garayn karnaa halkan next imagekan aynu soo import garaysano like this okay ma soo import garayn next image link is not divided baa leeyahay next image intaas kadib halkaan baynu ku haysanaa textidan then aynu style garayno markaasi halkaan dhammaantood waxaynu soo raacinaynaa class name aynu leenahay markaasi heightkiisa ha noqdo full backgroundkiisana waxaynu ka dhigaynaa white like that height instead of full and linen aynu ka dhigno screen then waxaynu sii raacinaynaa flexi itemsna waxaynu dejinaynaa markaasi center waxaynu leenahay padding oo dhan walba ah oo 5 ah lg markii lasoo gaarana waxaynu leenahay padding of 10 ah overflowna waxaynu leenahay hidden relative baynu ka dhigaynaa positionkiisa save haddii aynu dhahno like that waxaa arkaysaan hadda centerka inuu wada degay dhammaantood okay aan dhahno format document save intaas kadib waxaynu raacinaynaa class name datada markii laga soo helay kadib waxaynu leenahay widthgeeda waxaynu ka dhigaynaa full max widthgeeda waxaynu ka dhigaynaa 6xl waxaynu kaloo raacinaynaa rounded shadow waynu u yeelaynaa markaasi aynu leenahay 2xl waxaynu backgroundkiisa ka dhigaynaa white waxaynu kaloo sii raacinaynaa markaasi padding dhan walba ah oo 10 ah waxaan sii raacinaynaa oo kale large screen markii lasoo gaaro paddingkiisa ha noqdo 20 mxna waxaynu leenahay auto margin left and margin right textina waxaynu ka dhigaynaa markaasi gray of 800 relative baynu ka dhigaynaa positionkiisa medium screenka markii lasoo gaaro text waxaynu dejinaynaa left okay intaas ugu sii gudagalno aan u imaano qaybtan markaasi imageka leftiga ah waxaynu raacinaynaa class name medium screenka markii lasoo gaaro waxaynu leenahay flexi waxay kaloo raacinaynaa
itemskeeda inaynu dejino center. waxaan sii raacinayaa oo kale minus margin x oo markaasi ah 10. okay, imagekan laftirkiisana waxaan raacinayaa class name oo aan leeyahay let me format the document. It's already formatted. okay, waxaan raacinayaa class namekaas wuxuu noqonayaa relative, sababtoo waxaan rabnaa imagekan inaynu ka dhigno absolute inuu ku ahaado parentigan. waxaynu raacinaynaa imagekan class name, waxaynu leenahay widthgiisa ha noqdo full like that. waxaan rabnaa sare inaan kasoo durjino, waxaan leenahay relative ha noqdo basically, waxaan leenahay zkiisana ha noqdo 10. waxaynu u baahannahay halkan inaynu raacino I think padding x of 10 like that. waxaynu kaloo raacinaynaa margin bottom of 10. okay, waxaynu kaloo sii raacinaynaa padding top of 10. padding top maybe aynu ka dhigno 24 like that. this sound is good. okay, waa great. markaasi maybe padding topka weliba aynu sii badino, waxaad u istaagaraysan kartaa sidaa doonta adiga. then intaas kadib divkan waxaynu raacinaynaa class name, aynu leenahay bg waxaynu ka dhigaynaa, amaba aan idhaahdee border baynu u yeelaynaa. borderna waxaynu ka dhigaynaa yellow of 200. waxaynu kaloo raacinaynaa absolute inuu ku noqdo imageka. waxaynu leenahay top waxaa kasoo durjisaa 10, bottom waxaa kasoo durjisaa iyadana 10. waxaad kaloo kasoo durjinaysaa right iyadana 10. waxaan kaloo u baahannahay inaan sii raacino left iyadana inuu kasoo durko 10 oo isku mid kasoo wada durka dhammaantood. zna waxaynu leenahay 0. maybe imageka inay wax u dhiman yihiin. widthgiisa waxaynu ka dhigaynaa initially full, markii lasoo gaaraynu leenahay medium screenka width ha noqdo 102. intaas kadib waxaynu usoo gudagelaynaa titlekan. waxaynu raacinaynaa class name oon leenahay widthgiisa ha noqdo full, medium screenna ha noqdo widthgiisa 50% maybe 50% like this. okay, waxaan kaloo rabaa inaan raaciyo markaasi padding x oo 10 ah like that. intaas kadib dhammaantoodba inta guda jirto waxaan leeyahay margin bottom of 10 ii raaci. waxaan rabaa inaan raaciyo titleka class name oo aan leeyahay fontigiisa ha noqdo boldy. waxaan kaloo sii raacinayaa textgiisa ha noqoto uppercase like that. waxaan kaloo sii raacinayaa markaasi text ama font sizekiisa inuu ka dhigaynaa 2xl. intaas kadib margin bottom baynu raacinaynaa aynu leenahay 5. safe, this is cool. okay, waxaan kan u baahannahay descriptionka inaan u gudagalo. descriptionkan asagana aan raaciyo class name oo aan leeyahay markaasi text ama font size ha noqdo sm. waxaan kaloo raacinayaa text ama font size aynu ka dhigno gray of 400 amaba maybe 500 is good. alright, okay, isbaankan aan usoo gudagalo oo aan raaciyo halkan class namekaas aan leeyahay markaasi inline block ha noqdo inline block. waxaan kaloo sii raacinayaa markaasi itemska inuu online gareeyo. align baynu leenahay bottom, margin right of 5. intaas kadib isbaankan asigana waxaynu raacinaynaa class name aynu leenahay markaasi text waxaynu ka dhigaynaa 2xl. waxaynu kaloo sii raacinaynaa leading of none. waxaan kaloo u baahnaa inaan sii raaciyo in textida aan u online gareeyo baseline safe haddii aan dhaho like that. waxaan pricekana imaanaya, waxaan raacinayaa asigana class namekaas oo aan leeyahay markaasi fonti ha noqoto bold. waxaan kaloo sii raacinayaa text ha noqoto 5xl. waxaan sii raacinayaa leading oo isagana none ah. waxaan kaloo u baahanahay inaan sii raaciyo alignkiisa oo ah baseline safe like that. this must be cool. waxaan sii raacinayaa .99 kan oon raacinaya class name yadana oo aan leeyahay text ha noqoto 2xl. leadingna waxaynu ka dhigaynaa isagana none. waxaynu sii raacinaynaa alignkiisa safe just like that. this sound is great.
laakiin waxaan arkaysaa buttonkan in yara uu qarsamayo. Shadowgan waa naga yara qaldan yahay. Shadowgan waxaynu leenahay this 2xl margin x kan haddii aynu ka tirtirnaba. Okay, like that. Margin bottomkiisana waxaynu ka dhigaynaa 14. waxaan u baahanahay heightkan intii screen aynu dhihi lahayn inuu dhammaantiis wada dego. That means waxaynu leenahay heightkiisa ha noqdo full, just like that. halkaana waxaynu rabnaa margin top inaynu raacino 10 ah, sare inuu 10 kasoo durko, just like that. Detailedkan haddii aan ku dhufano waxaynu celinayaa productskani, haddii aan halkaa kusoo dhufanana waxaynu keenayaa single productgani. I think projectgana hadda wuxuu u muuqdaa mid smooth ah. Okay, waxaynu soo fetch garinayaa. haddii aan full screen aan ku fiirin oo aan aragnaba, laakiin waxaan arkaysaa backgroundka inuu yara yahay markaasi black backgroundka, soo markaasi customize garanaya. Stylekan waxaynu leenahay bodygiisa instead background oo sidaan ahaa aan dhahno like this. Yes, now it works great. You can see our products, you can see single product, you can see all the stuffs inay noo shaqeynayaan. dabcan projectgan focuskeenu ma aha user interface-ka. User interface-ka waxaa u qaabaysan kartaa si alla sida aad doonto, laakiin focuskeygu wuxuu yahay inaan ku tuso basics of Next.js. I think kan waxay qurux badan tahay inuu flex aado. Si aanu flex uga dhigno aynu tagno dibkana inoo soo raab gareynayo soma. Okay, like that. Okay, flex aynu ka dhigno. waxaan kaloo u baahanahay imageka inaan yara weyneyno. waxaan teginaa halkan, waxaan raacinaa class handle oo leenahay widthkiisa 500, heightkiisana waxaan leenahay 500, just like that. Alright, this is great. waxaan ugu dambeyn u baahanahay in buttonkan uu inoo shaqeeyo. buttonkan waxaynu ku sida upgrade doonaa dabcan Firebase authentication. si aan sidaa u sameyno, ugu horreyn waxaynu u baahanahay inaynu aadno Firebase inaynu aadnayn u baahanahay, then aynu aadno console Firebase-keeda. Then okay, waxaynu leenahay go to console. aniga waxaan rabaa inaan isticmaalo midkan testiga. haddii aad rabto new project waa ku tirsan kartaa adigoo instructions ka raacaya, waa iska simple. laakiin ma rabo in waxaas waqti aan kaaga lumiyo. waxaan u gudagalayaa in projectga aan isticmaalo. haddii aan project settings aan tago, haddii hoos aan scroll gareeyo waxaa arkaysaa waxyaalaha u baahantahay. waxaad ugu horreyn u baahantahay in Firebase aad soo install garaysato, then configurationkeeda aad sameyso. let us copy configurationkan. aniga waa soo install garaystay already. waxaan halkan tegayaa, maybe aan tago componentskan aan tago, then aan sameeyo file la yiraahdo login.js. halkaana markaasi paste aan ku leeyahay. intaas kadib Firebase configurationkeeda markaan sameyno, waxaynu u baahanahay Firebase inaynu soo install garayno. haddaba adigu waxaa u baahan doontaa adoo instruction raacayo Firebase console inaad soo install garaysato si uu kugu shaqeeyo commandigan Firebase login iyo waxyaalaha si ay kugu shaqeeyaan. ana hadda waa login garaystay. adigu waxaa u baahan tahay in ugu horeyn si in aad soo install garaysato aan idhaahdee command line tools ama CLI-ga Firebase. okay, but hadda waxaan soo install garaynayaa Firebase kaliya. aniga CLI-ga waa soo install garaysan yahay. waxaad inoo soo install garaynayaa Firebase. okay, ugu horeyn waxaan u baahanahay inaynu soo import garaysano Firebase initialize app, then kan aan soo import garaysano. haddii aan hoos aan tagno waxaan leenahay const app ha inoola mid noqdo initialize app oo markaasi la inoo initial garaynayo Firebase configurationkan. haddii aan halkan aan dhahno initialize app still it doesn't work, aan si custom ah usoo import garaysano, then halkan paste aan ku dhahno appna ha inoola mid noqdaynu leenahay like that. waa iska xiri karnaa terminalkan, qaybtan waa iska yaray karnaa. okay,
waxaynu u baahannahay haddii id-gan isku xirno productskan aynu isku xirno markii lagu dhufto yacni markii lagu dhufto header componentigan buttonkan markii lagu dhufto in markaasi noo redirect garayo in Firebase authentication sign up ka ah. Okay, halkaan aynu tegaynaa waxaynu sameysanaynaa function aynu ugu magac dari doono sign with Google, maybe aynu ugu magac darno asynci oo waxaynu leenahay functionkan waa la sugayaa. waxaynu leenahay authenticationkii get out baynu leenahay const equal to get out oo ka imaaneysa get out. haddii asaan dhahno get out waxay ka imaaneysaa Firebase out. waxaynu leenahay import something from Firebase aan dhaho Firebase/out. waxaan u baahannahay inaan soo import gareysano get out and here it is. waxaan leenahay markaasi waxaan try catch baynu ku xiraynaa si issueska aynu u handle gareyno. waxaan leenahay try waxaa isku daydaa inaan sugno, waxaan sugaynaa. waxaynu leenahay sign in with pop-up oo ka imaaneysa iyadana Firebase authenticationkii. waxaynu u baas gareynaynaa outkan. waxaynu leenahay new waxaynu ka dhigaynaa Google Auth Provider and that is it. errorkana waxaan leenahay console log le aynu kasoo saarno errorkaas. save haddii aynu dhahno for now si aan functionka u isticmaalo keliya waxaynu u baahannahay inaynu export gareyno. halkaan aynu copy leenahay waxaynu tegaynaa headerkeena and then at this button waxaynu leenahay markii haddaan halkaan aan tagno markii on click markii lagu dhufto buttonkan on click baynu leenahay haynoo waco sign in with Google functionkaas. okay, haddii aynu save dhahno aynu halkaan tagno refresh aynu ku dhufano buttonkan waxaan arkaynaynaa inaan helayno issue. sababtuna waxay tahay on click listener to be function instead we got the value of object. okay, waxaan u baahannahay inaan on clicktan aan function aan ka dhigno. we can remove this waxaynu leenahay like this arrow function baynu leenahay waxaa loo yaqaana arrinkan anonymous function. refresh haddaan dhahno haddii aan terminal keena fiirno waxaanu leeyahay if you need interactively consider converting to the client side. okay, waxaan u baahannahay inaan u bedelno client side sababtoo ah waa qayb clientii kamid ah ku jiro codekan. waxaanu leenahay use client refresh. okay, boom. haddii aan ku dhufano hadda buttonkan wuxuu noo redirect gareynayaa authenticationkii. waana la authenticate gareeyo balse ilaa hadda halkaan kama soo display gareynayo. si aan uga soo display gareyno waxaan tegaynaa markaasi loginkaan iska xirno headerkan baynu tegaynaa. waxaynu leenahay const waxaynu u baahannahay inaynu access gareyno inuu nidhaahdo get out. outkaas waxaynu kasoo helaynaa get outkaas wuxuu inooga imaanayaa Firebase authenticationka. waxaynu leenahay on state change on auth state changed yani waxaan rabnaa in haddii aan refresh dhahno oo inaga lumin. waxaan leenahay auth waxaynu kaloo u baas gareynaynaa waxaan leenahay if there is a user haddii user uu jiro waxaynu halkaan u baas sameysan doonaa use state. waxaynu leenahay const user located uu login gareeyay set user located. initially waxaynu ka dhigaynaa use state oo markaasi empty aynu ka dhigno. haddaynu leenahay markaasi set user waxayd ka dhigtaa userkan noo soo baadgareyay. hadhow marka kan waynu access gareyn karnaa. haddii aynu tagno buttonkan waxaynu leenahay instead aan button kaliya soo return gareynaynay aynu dhahno markaasi there is user located haddii uu jiro user login gareeyay. that means waxaan u baahanaa inaan soo display gareyno profilekii. waxaan leenahay divkaas oo inoo dhexgeli doona markaasi h1 kan
waxaan dhex gelin doonaa user located dot aan soo xiro user located dot display name. Okay, elsena waxaanu leenahay inaynu soo return gareyno isla bottomkeeni. Okay, bottomkii aan soo return gareyno save haddii aan dhahno shakuur baan halkaas ka arkaynaa. Okay, user located dot display name wuxuu noogu imaanayaa Firebase. haddii hadda aan tagno user located kan oo CLG aan kasoo saarno console logga, then aan check gareyno consolekeena, tagno consoleka, waxaa arkaysaan user MPL waxaa uga jeedaan access token, display namekii, emailkii, photo URL-kii, waxyaalahaas oo dhan halkaan ka arkaysaan. Okay, that's why marka halkaas aan display name ugu soo display gareynayo. waxaan kaloo u baahanahay inaan raaciyo imageka. waxaanu leenahay src giisa ha noqdo user located dot to url photo url. I think ina saan qorno waxaanu arkaynaa inaynu imageka lasoo display gareyn doonin. sababtu maxay tahay? horeyn aynu install gareyno, class name baynu raacinaynaa, waxaanu leenahay flexi, cursorkooda waxaynu ka dhigaynaa pointer, itemsna waxaynu dejinaynaa markaasi qayb centerka ah. hajwakan iyadana waxaynu raacinaynaa class name, aynu leenahay markaasi text waxaynu ka dhigaynaa gray of 500, truncate baynu leenahay haddii ay size-ka ka weynaato, widthgeedana waxaynu ka dhigaynaa 24. Okay, photogan iyadana waxaynu raacinaynaa class name, aynu leenahay markaasi inline block waxaynu sii raacinaynaa oo kale widthgeeda oo 8 ah, heightkeeda iyadana 8 ah, ringi waynu u yeelaynaa oo 2, ringina waxaynu ka dhigaynaa white. Save. waxaan u baahannahay imagekan formatkiisa inaan bedelno. si aan u bedelno waxaynu leenahay markaasi const formatted photo, waxaynu leenahay hala mid noqoto user located haddii uu jiraba dot, maybe inuu conditionally uuna jirin, photo URL haddii ay jirta iyadana dot replace, waxaynu ku bedeleynaa comma backticks slash question mark, hala mid noqotaynu leenahay d plus percentage slash comma, waxaa ku bedelnaa waxaasoo dhan empty string. Okay, aan hadda isku dayo inaan soo display gareeyo formatted image. Okay, save haddaan dhaho still waxba sooma baxayaan. waxaynu halkaan ka tegaynaa t maybe. Save haddaan dhahno boom, it's displaying right now. Okay, imageka waxaynu raacinaynaa oo kale rounded baynu raacinaynaa. roundedkaas waxaynu ka dhigaynaa full oo dhammaantiis inuu wada wareegaynu doonaynaa. boom, here we go. I think this is done. This is almost done. Alright, korsagan haddii aad soo dhamaysatay, waxyaalaha markaasi aad baratay waxaa ka mid ah React.js basigeeda sida props, hookies, React sababta loo found gareeyay. sidoo kale waxyaalaha aad baratay waxaa ka mid ah Next.js oo markaasi ah skill aad future fiican u leh, framework aad u wanaagsan sanadkan inaad bartana worthy ah oo qiimo lacageed aad ku samayn karto. Next.js kaliya ma aha front end framework, waa full stack framework. waxaa baratay sida aad u samayn karto API endpoints, waxaa baratay filasha iyo API routingka, waxaa baratay loadingka sida ugu darsan karto ay u fududahay, waxaa baratay sida aad page-da ugu navigate karto adigoo isticmaalaya Next.js. sidoo kale waxaa baratay sida aad data usoo fetch garaysan karto. waxaan rajeynayaa in coursigan aad wax ka faa'iiday. haddii aad projectigan ila dhisayso oo issue aad aragto, feel free inaad comment ugula wadaagto. waana mahadsantihiin saaxiibayaal.